ninkan 2 sano muddo ku dhow ayuu wuxuu u ololeynayay iskuulkan in meeshan laga furo Gurceel 2 sano macnaheedu hadduu qof madaalaad jiro oo reer Gurceel waa horta agaasim Cumar muddo 2 sano naga daba socda aakhirkiina waana keenay soo najiida halkaana keenay dhuuso mareeb iyo garoowe iyo baydhaba waa codsanayeen markaas Gurceel ku guuleysata waana asaga commitmentigiis ninkan asad waaye waa nin muhiim magaalada muhiim u yahay laga warqaba in kula dabaaldegay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay asaaska xarunta degmada Gurceel ee iskuulka Royal Muslim Academy sida caaw halkan ka daawateen waxaad aragteen ardaydii nala joogtay muddada halka sano ahayd waxyaabihii ay faa'iideysteen qaybo kamid ah ee halkan ku soo bandhigeen laga yaabee dadka qaar inaysan fahminin waxyaabaha ay ka hadlayeen laakiin hal qodob oo aad muhiim u ah waxa jira qof walba uu fahmi karo oo ilmaha soo bandhigayeen maanta qodobkaas waxa waaye in arday da'diisu 10 sano ka yar tahay iyo qaar 10 sano jiryaal ah inay halkan inta soo istaagaan bulshada intaan la eg ay ku hor hadlaan intaas ayaa waxa ay tahay wax aan sahlanayn waxa suurtagal ah dadka qaar waaweyn in inta meeshan soo istaagaan inaysan war la soo gudbin karin sababtuna waxa waaye waa tababar wuxuu ma ahan weynin iyo yaraan kala ma lahan ee waa tababar inuu qofkan u tababaran yahay inuu meel inta soo istaago ku dhiirado inuu dadkiina la hadlo warbixintiisiina uu gudbiyo waa tababaray u baahan tahay tababarkaasna wuxuu ka mid yahay core valueska iyo qiyamka iskuulka Royal Muslim waxyaabaha ugu muhiimsan ilmaha barno ayay ka mid tahay qaababkan u barnana waxa waaye waalidiinteena ayaa og qolyaha baraha bulshada nagala socdana kulli way arkeen isbuuc kasta waxaan sameeynaa debate wax la yiraahdo debates ama doodahaas English ay u badan yihiin mararka qaarna Soomaali waa ku bixinaa laakiin Englishka ay u badan yihiin si ilmihii xoogaa luqadaas ay u bartaan maalin walba oo isniina debate galaan marka ardada kale oo dhan la soo fariisina kadibna ardada hortooda ay ku doodayaan marka ardaygii markuu sidaas ku barbaaro waxa u fududaane bulsho kasto la hor keeno inuu la hadli karo warbixintiisan u gudbin karo waana waxyaabaha asaasiga qofka aqoon-yahanka ama qofka wax bartay sidoo rabo wax u barto haddii uusan wixii uu bartay gudbin karinin wixii gudihiisa ku jiraya waxaa la rabaa marka wixii aad baratay waa inaad bulshada u gudbin kartaa hadday badan tahay hadday yartaaba weliba dadka leaderska ama hogaamiyaasha waxa laga maarmaana inay leeyihiin public speaking leeyihiin waa laga maarmaan public speakingna nidaam iyo waxyaabo iyo geesinimo iyo karti iyo wuxuu u baahan yahay inkastoo anna waa reer galmudug anaay waxaasna looma diraa u maleynaya nin walbo naga mid ah microphone-ku qabsan karaa saa qiyaasayo marka intaas waxaan rabaa marka inta aanan u gudbinin madaxda meesha noo fadhisa ina wax yar Royal in kaga sheego waa soo koobeena caadiyan iskuulka Royal markuu uu qabanayo xafladaha ilmaha siina anaga stage ilmaha iska leh waxaan iskuulaadka uga duwanahay jaamacadaha waa ilmaha noo qudbeeya ilmaha hadla kadib halka qof oo markaas muhiimka noo ama labada qof saddexda qof oo jooga ayaan microphone-ka siinaa waa abaal marinaa waana ku kala yaacnaa sidaas ay anagu arimeen u sameeyay halka iskuulaadka kale iyo jaamacadaha kale khudbad lagu bilaabo khudbadna lagu dhameeyo oo meeshii dhamaa dadka guestiska ay la wareegaan Royal Muslim 2011 ayaa laga furay Nairobi soo magac kala wata Xaraf International College la dhaho kadib halkaan aan nimid 2012 hadda xasuusatiin iskuula laga furay meeshan Xaraf la yiraahdo computer kaliya aha kadib 2016 ayaan waxaan bilaabnay inaan primary furno xarunta Nairobi ayaana lagu furay markii aan furayna waxaan xasuusanaa 2 qol ayaa laga bilaabay iyo hal xafiis ardada joogtana
toban labaatan kamaysa badnayn maanta waxaa ilaahay mahadiya Nairobi laba xarumood ku taala oo Royal Muslima qaybta primary Royal Muslima la yiraahdaa qaybta high school kana Sanabil secondary school la dhahaa arday 700 ilaa 800 ayaa maanta dhigtay xarunta Nairobi oo kaliya kadib waxaan go'aansanay inaan Soomaaliya nimaano 2018 magaalada Muqdisho ayaan ka furnay kadibna waxaan dhahnay aan isballaarino markaan aragnay in shaqadaani gobolada looga baahan yahay waxaan hadana dooranay inaan nimaano galmudug gaar ahaan Gurceel mar kale 2012kiina waa nimid 2023 last year halkaan ayaan ka furnay sanadkan waxaan noo qorsheysan inaan ka furno magaalada Baydhabo 17 bishan oo ku aadan maalinta Arbacada next week magaalada Baydhabo ka furi doonaa xarunteennii saddexaad ee Soomaaliya maanta xarumaha markii la isku daro Royal Nairobi and Royal Muqdisho iyo Royal Gurceel iyo Baydhabo oo diiwaan gelintiisii mar horeba bilaabato ardayda la diiwaan geli waxay si cagacageynayaan ilaa iyo 600 oo arday ayaa maanta Royal Muslim Muqdisho iyo Gurceel iyo Baydhabo ku diiwaan gashan oo arday Soomaaliyeed oo system international wax ku baranaya lana tartami kara arday kasta ee dunida joogo ee wax baranaya ku standard la wax barasho ah ayaa maanta dalka Soomaaliya laga heli karaa gaar ahaan magaalada Gurceel waxay nasiib u yeelatay markii caasimadda laga soo haro in aan xaruntii ka furno halkaan marka reer Gurceel si gooniya ayaan saaxiibo u nahay waa rajaynaynaa inuu iskuulkaani waxaan rajaynaynaa inuu xarunta Muqdisho ka dadbato hadda tartanka furan waa Baydhabo waa inaysan Baydhabo inka arday badan waa inaysan Baydhabo markii bandhigyada la sameynayo aysan inka bandhigyo qurxoonaana la rabaa reer galmudug waa lagu yaqaanaa inay yani alaabti koobkii galmudug kale waa in laga dhigaa oo iskuulka waa inuu koobka qaada xataa Nairobi inaa ka qaadina la rabaa taas waa midaas waxaan rabaa in iska soo gabagabeeyo dhankeyga waxaan u wacayaa waxaan rabaa arrin yar inaan ku darsado waxaa jirtay waxaa inoo yimaaday iskuulka inta badan waxaa inoo imaada dadka kala yimaada gobolada qof walba wuxuu rabaa in gobolkiisa iskuulka laga furo sanadkii 2019 niman dhalinyaro noo yimaado ustaad Cumar oo halka isku qarinaya muddo 2 sano ninkaan horta ustaad Cumar waxaan rabaa in horta ustaad Cumar bal istaag Sheekh Cumar agaasi Cumar ninkaan 2 sano muddo ku dhow ayuu wuxuu u ololeynay iskuulkan in meeshan laga furo Gurceel 2 sano macnaheedu hadduu qof madaalaad jiro oo reer Gurceel waa horta agaasi Cumar muddo 2 sano naga daba socda aakhirkiina waana keenay soo najiida halkaan keenay dhuuso mareeb iyo Garoowe iyo Baydhabo waa codsanayeen markaas Gurceel ku guuleysata waana asaga commitmentigiisa ninkan asad waayo waa nin muhiim magaalada muhiim u yahay laga warqaba